أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وادي سلامي دمانتينا meel walbo aad joogtaan. Welcome back again to Ashraf Academic Online. maanta waxayna qaadan doonaa cashiraad xiiso badan. haddii ay maalintii kugu horeysay oo aad channel ka soo booqatid, waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe taateed, gambaleerkana furtid si uu ku soo gaaro cashir walba ayna soo gelino. Okay, waxaynu qaadan doonaa conversation wada sheekaysi. A iyo B ayaa ka wada hadlayo. ayaa hadalka bilaabay. wuxuu leeyahay which is better, keebaa wanaagsan to learn in la barto English and Arabic. keebaa wanaagsan in la barto Arabic iyo Englishka. which is better, keebaa wanaagsan to learn in la barto English and Arabic. Ingiriiska iyo Carabiga. Okay, which is better, keebaa wanaagsan to learn in la barto English, Ingiriiska, and Arabic iyo Carabiga. B ayaa ka jawaabay. wuxuu leeyahay Arabic is better than English. Carabiga ayaa ka wanaagsan Englishka. Arabiga is better than wuxuu ka wanaagsan yahay ba Englishka. Arabic is better than English. Carabiga ayaa ka wanaagsan ama ka fiican Englishka. Okay, ayaa ka jawaabay how can you prove that? sidee ayaad ku cadeyn kartaa taasi? How can you prove that? sidee ayaad ku cadeyn kartaa taasi? Proof maxaa waay? cadeen waay. How can you prove? sidee ayaad ku cadeyn kartaa that taasi? Okay, B ayaa ka jawaabayo I can prove that. taasi waxaan ku cadeyn karaa yuray. I can prove waan cadeyn karaa that taasi because maxaa yeelay Arabiga is the language waa luqad. Arabiga is the language waa luqad which luqadaasoo people dadka will speak ay ku hadli doonaan in Doomsday maalinta qiyaamaha. Arabiga is the language waa luqad which luqadaasoo people dadku will speak ay ku hadli doonaan in Doomsday maalinta qiyaamaha. in Doomsday maxaa waaye? maalinta qiyaamaha. so sidaa daraadeed that is why taasi waa sababta it is better than English ay ga wanaagsan tahay Ingiriiska. That is why taasi waa sababta it is better. Id waxay u taagan tahay Carabiga u taagan tahay. It is better oo ay ga wanaagsan tahay than English Englishka. Okay, A ayaa qaadanayo. wuxuu leeyahay if it is that, haddii ay taasi tahay why do you learn English? maxaad u bartaa Englishka? if it is that, haddii ay taasi tahay oo macna oo Englishka oo Carabiga Englishka wanaagsan yahay, why do you learn English? maxaa ayaad u bartaa Englishka? Why do you learn English? maxaad u bartaa Englishka? B ayaa ka jawaabay. wuxuu leeyahay I learn English waxaan Englishka u bartaa to communicate in la wadaago with the foreigner people dadka ajaanibta. communicate maxaa waaye? la wadaagid. Okay, foreigner ajaanib. I learn English waxaan Englishka u bartaa to communicate inaan la wadaago with the foreigner people dadka ajaanibta. Okay, I learn English to communicate with the foreign people inaan la wadaago dadka ajaanibta. Okay, halkaas ayaan idigu soo talagalay oo intaas ayaan idigu soo talagalay. khayr badan ayaan idin rajaynayaa. intaan ku kulmayna cashir kale oo aad u xiiso badan.